السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرة بعد برنامج قيمة هي قاية لها فكي سوغانتا oo caawa ay martin ugu tahay fanaanad weyn oo degan dalka Mareykanka qaar ahaan gobolka Minnesota Fartuun Omar Abdi codkii hadda aad maqlayseen ugu dambeysayna wuxuu ahaa codkii Fartuun Omar Abdi. Fartuun Omar Abdi ku soo dhawow barnaamijka fankii suugaanta ee Radio Samadoon. aad baa mahadsantahay. insha Allah ta'ala waxaan guda galaynaa barnaamijkeygii markii ugu horeysa Fartuun su'aashii ugu horeysa ku weydiinayo waxay tahay Fartuun Omar adigu waxa tahay fanaaniintii dambe waliba waxa ku jirta kuwa ugu codka wanaagsan gaar ahaan anigu aan aad u jeclahay ciirahana su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo waxay tahay Fartuun goormaad ku dhalatay horta inaad heystid ama aad fanka Soomaaliya ku soo biirtay taariikh ahaan taariikh ahaan waxaan ku soo biiray 2003 labadii baan ku soo biiray waa gartay laakiin fanka waa waxaan ilaa yaraantayda jeclaa la carruurnimadeedii waa gartay iskuulka markaan dhigan jiray aan u heesi jiray ardada banaanada anoo aad u yar aan lacagta kaga guran jiray wiilasha gabdhaha xaafadda waa gartay marka waxaan aad u jeclaa waa fanka waligii oo muddo aad u jeclay aad iyo aad xilligaad ardayda ahayd oo aad iskuulka dhigan jirtay oo aad heesi jirtay Fartuun fanaanadee aad jeclayd heeseed inaad qaadid oo adiga ku ahayd dooq ahaan كنت حاجي نبعة جامعة. واو نبعة جامعة. نبعة جامعة كنت حاجي. نبعة ريت جيبوتي كا. نبعة ريت جيبوتي. ها هي سهلي. هي سهلة أنا ذو. بأد وشعلي. أدي أد. أوكي أد بعد وما صنت هاي والله بفنان وأدي أد كل فنك الصومالي ده يا من جيبوتها نقطة لو بفنان وقيمة يقاي كلوي وعضو ناس مولبة. أدي أد. فرتون dadku markay magacaaga maqlaan inta badan Fartuun Umar markay maqlaan waxay is oran jireen Fartuun Umar Duuleeya la Fartuun Umar Abdi inaad tahay oo aad fanaanad kala tahay inay ogaadaan laftigeeda aad bay muhiim u tahay warba ugu dhacday arintaas boqol jeer markasta igu dhacda markasta haye runtii Umar Duuleeya waa fanaan aad u jeclaa xagga nimanka markay noqoto waana nin legend ah صح لكن ما هي إنه عمر دولة. إنه عمر عبد الله. عمر حيسها تعيلها. عادي عادي. لا ما تعيل مش عيل بقصة مرة فطور. ما أدبر وجهين دوي. والله تعيل أنا قلت كي لما روم بيقول عمر دولة. عادي عادي عادي. فطور هسي هوريتو فنانينتي هوريتو كل لما يرد الدنباء ولود كذا وحا دبيعات واحد إنه يهسب بدن وفنانينتي فنان كستنا مركو صاع عم بحيا يهسب فنان كلامه قاضي وقصبين هاي. نوارن. runtii waxaad ku jirtaa fanaaniinta markay heesaha ay fanaaniinta kala leeyihiin qaadayaan sida ay ahayd u qaadaan oo dhinac kastaba ka soo baxa sida aan anigu kuleyba aqoontayda aan u fikray ama dad badan oo ka sheekeynaya aan maqlayba waan dhageystay heesa badan oo fanaaniintaasi horey u qaadeen adiguna aad ka daba qaaday laakiin ma jiraan wax hees ah oo adiga kuu gooni ah oo aad leedahay Fartuun heesa badan baa jira magac ma leedahay heestaas هس ليلى هذا السمر أنا يو جولد أحمد مريكن كيلا دكان فنان دايرها وذا قاعدينه واقت وآد تدكو شعلي هيرون أهانتي سيبدان يرضى مركين نقطه ما أنتي نورد أمريكا نو يو مالكستا صح نيك العود كيسا مقلوب مالكستو أنت يو أروس ديتها يو حفلة ديتها مالكستي ليلى هستي سمر نوقتهر واقتي هستا سويتشرتا هستا يا اللي في مري هذا اسكال بفرتون هستا سوحة اللي في يرأسنا أبوان دائر أو نلدقن عريق مريكن كا مقع السنة اللي راد أحمد هيكل باللحن كإمراه بإسكالها لحن كان سجر راعي ما شاء الله هستا السمر باللي هذا هستا صح هذه يقول بوضع هذه يقول أحمد بوضع قاعدينا وهستي كوجو الرئيسي وأدي بعد الهاتيت ما يلا بهس بيجو الرئيسي لا بهس وكلا كاجو الرئيسي هس ودني يو وح يجو الرئيسي وح يجو الرئيسي هس إيدا هس إيدا ما أنت إيدا ما أنت إيدا لو ألفي آد كل رجستياش قيمة هي قايها لو وان رجسين دورنا هسه Fartuun kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwii leedahay iyo kuwii dambe fanaaniinta inta waan dhageysin doonaa hadii ilaahay idmo meesha aad naga socotaana waa Radio Samadoon موجودة ديركيدو هاي سجال دبيع صدح تلفون نمبرك قفكي وبعدين صوّع إذا عدا وعلباتني يكو صدني يسديد إبر أفر سجاشني لو أنا مرة لوادني كوي عليو وكوي لباتن صدني يسديد إبر أفر سجاشن يلابو وحنشعلان لها بل إن مركو جوه الرئيس عن هس استوديو عن إني كحجرة لجستياش قيمة هي قايها لو أي قادة فرتون عمر فرتون عمر مرة بعد سودو وبنقوليه برنامج شفن كيسو قده فرتون فنك الصومالي ذو الصومالي وعي كانت دوين ما نقدر مير بسوي أديات مركز أديك قياستي
fankii Soomaalida horete ee muusigii kataarkii iyo basskii iyo baterigii gadaashaada joogeen oo fanaankii uu microphone-kaysto uu macnaha uu hor taagan yahay iyo meeshaan maanta uu marayo CD-gan computerka wixii lagu guray oo qofkiiba uu hor taagan yahay cid ka dambaysa ay jirin labada fan keeba dhadhan wanaagsan baad oran kartaa maadaama aad fanaana tahay muusiga aad muddo kusoo jirtaan labaduba hore waa macaan yihiin waqtiyaduna waa kala duwan yihiin saa aragtiinba dadkii hore iyo dadka maanta jooga muusiga han markay noqoto waa kala duwan yahay waagii hore fanku wuxuu ahaan jiray in intii la fiirsado la fiirsado fanaaniintu markay heesayaan haddana fanka wuxuu noqday in la istaago la dheelo marka saasa muusiga loo bedel runaan saan u arko laakiin qaar ba fanaaniinta qaar bad waxay aaminsan yihiin kii hore markii fankii dambe xagga hadduu fanaanku xataa foorteen ma galo muusigii loo sii wadayo oo loo qarin karayo laakiin kan CD-ga qofkii uu qaldamo waxa lagu leeyahay waa sidoo uga dhacay tareenkii weeye been ma aha CD-gu intaas ku xun yahay markii heesta la soo duubo oo diyaar tahay oo qof computerkaas ku xiran aad iyo aad waa inaad professional tahay qof wixii xirfad gooni u leh marka heesti qaadaysid hadday tahay wax oo meeshii iska galay taartoor ma soconayso aad iyo aad taas uu ku xun yahay muusiga dambe sax may aad baad u mahadsan tahay Fartuun adigu waxaad digan tahay dalka Mareykanka fankan halkaas aad ka bilowday inkastoo aad sheegtay yaraantaadii inaad fanka jeclay dhiigaaga ugu jiray aad iyo aad waa qof waxaad noqotay qof riyadiisii ka gulgaaray baan anigu ku arkaa inaad tahay sax waxaad tiri hees wadaniga aan qaada ayaa jirta aad iyo aad heesta wadaniga yaa sameeyay heestas wadaniga waxaa sameeyay yar la yiraahdo Maxamed Guun oo abwaan ah Mareykanka ila degan waxaana heestas la alifay markii la saaray Sheekh Shariif baa heesta la alif waa gartay bal heestas eraya ma naga maqsin kartaa codkaaga dhageystayaasha lagu fiirsan aad iyo aad waxa iska diriifka waxaan ahaan iyo miraha bal hal page naga dhageysan aad iyo aad waxaa kamid ahaa heesta handaan xoolahaad baan ciido u dirirno calool xumo la kala qabo isku ciirsan weyne ma sha Allah hubka kiisa culus iyo cara dhuhubtu daragto cida la isku ololsheeye ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله استمع الكاس مربان قاضيو كله سيف عنه ما حسست لكن هو عدكان وينه عالم ما كان بلا موسيقى تايوا ما كسي دايما كان موسيقى تايوا هستي سمير وسبي احمد هيكل قولاد احمد القاضي قولاد احمد القاضي بل هستاس بان بدوينها كل سنه يعني ان شاء الله ان نلا دغيستان جعان لهين دغيس وعن سلوق بحانيه كنول سمير عاديستي سلوغا maalmeed سلوغو maalmeed waa aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad hees aad macaan way runtii aniga caawa heesta ay ugu horeysa waa heestan aad ugu helay runtii Fartuun waxaad timid wadamada Scandinavia gaar ahaan dalka Norway baa timid waxaad ka dhigtay bandhig faneed habeenada kamid ah maqaldad badan baa soo galay ma kugu jirtaa Fartuun in aad Scandinavia-ka saddex wadan baa la isku yiraahdaa sida Sweden iyo Denmark iyo ma laga yaabaa inaad wadamada kale u sii gudubtid oo aad bandhig faneedadaada dhinacaas kale aad u sii wadid soddonka bisha waxaan u socdaa Holland hadii Ilaahay idmo waa gartay shanta bisha dambana aniga iyo la foole baa waxaan ka dhiganay Sweden adiga fanaanka weyn la foole shanta bisha Sweden baa ka dhigaysaa shanta bisha hadii Ilaahay idmo aad iyo aad kullu ninkii nasiib u lahaa habeenka meesha tagay fanaaniinta Soomaaliyeed ee heesta markaad yareed waxaad jecleed كيس حاجة هذا نيجي معك ولي مسيد ماشي على ستاجين مسوي كذا وكذا تو أما قبلها نقطة أو هاي نقطة بل فنانين هسه تعيش هاي أما مركز نصيص كل شيء تعيش هنا ليه ستي فنانت قبلها دم واتش على هاي إنكستو كيس حاجة يو ما عرفت وحيران أنت أكوتش علاتي ولقى فيبر كاجا هانا يان كيس حاجة نبعت شامع إن حبيبي حسن توحو مريم مرسل magaal ilaahay u naxariisto fanaaniinta dhan waa dhageystaa fanaan aan gooni u dhageysto horta ma jirto kulligood wada dhageystaa laakiin still kan si xaajin ma jaamac wali ma shooda ay taagan yihiin dhageystayaasha qiimaha iyo qaaliyaha oo meesha nagala socotaan waa Radio Samadoon idaacadda dhererkeedu yahay 99.3 waxaad kaloo toos nooga dhageysan kartaan shabakada calanka oo ay aad toos naga dhageysan kartaan iyo Radio Nova
iyo waxaad kaloo naga dhegaysan kartaan haddii aad u baahan tihiin www.samadoon.com saddexda meeloodba waxaad ka heli kartaa idaacadda radio Samadoon toos ayaad uga dhegaysan kartaan caawa ay marti noo ahayd fanaanada weyn Fartuun Omar Cabdi. Hello. السلام عليكم أمين ونكسن وراديو سمادون فنادي وين فرتون عمر عبدي أيام استوديو كنت سويلكم مقلة سلام عليكم وما تنسبوا سمير هستي سمير أبيات كلبتا aan sameynay waxaa sameeyay yarka heesta alifay Axmed Haykal runaantii heesta markuu alifay buu wuxuu go'aansaday wax ka duwan wixii hore la duubi jiray wuxuu yiri dad cusub baan u heesaynaa dad yaryar baan u heesaynaa marka wax ayagiina ay fahmi karaan annagiina na soo bixin kara inaan waxayna waaye kilib ahaanta saasa marka loo sameeyo oo ugu duwan tahay heesii hore oo la sameyn jiray ama aniga aan sameeyo ama fanaan kale ha sameeyo saasay kilibtu ku saabsan tahay buu su-aashii ugu dambeysay oo aan rabnay barnaamijkayga inaan kusoo gabagabayno Fartuun adigoo mahadsan maanta inaad ugu soo boqotay studioga radio Samadoon maxaad fanka fanaaniinta Soomaaliyeed aad micnaha jeceshahay inaad tiraahdid oo aad micnaha adiga aad isleedahay maanta fanka waad kusoo kordhin kartaa ama talo ama tusaalo ama aad isleedahay maanta hawada maray ka dhaca fanaaniinta Soomaaliyeed ma fanaaniintii hore ama kuwa dambe inta jecel inay heesto kuwa hadda raba inay soo heesaan kuwa cuslaaday laftigoodii talay kaaga baahan yihiin كلي كوع عسلاد أنا قلت له أقبان سام وأركو مدام وحنا أنا كوع عصبنا إنه جهريين فنانين تعصبنا وحن قعد سنة هيا سيدي فنانين تهرق ماشي مرن إني مران ويسكت على ذان فنك سكالي لو بدري بس وحن قعد سنة هيا أنت سكعد سنة يا بعض ما سنتاي فرتون عمر عبدي أو دجندلك مرايكن كجارهان مينيسوتا أو ما أنت نوصل بقطع استوديو راديو سمادون يدرك نوري جارهان عاصمة أوسلو.